dhinaca kale bal haddii aan eegno dhegaystayaal adeegyada aaladaha baraha bulshada ah ee dadku ku wada xiriiraan ee Facebook, WhatsApp iyo sidoo kale Instagram ayaa dib hawada ugu soo laabtay kadib markii uu hawada uu ka maqnaa ku dhowaad 6 saacadood taasi oo la sheegay in culays weyn ku keentay dadka isticmaala aaladahan. shirkaddu waxa ay sheegtay in sababta ay ahayd cilad ku timi hanaanka ay shirkadahan u shaqeeyaan. dhammaan saddexdan aalad ee baraha bulshada waxa iskale shirkadda Facebook la yiraahdo. waa muddadii ugu dheereed ee barahan bulshada ay hawada ka maqnaadaan sida shirkaddu warbixin ay soo saartay ku sheegtay. dad tiradoodu ay gaarayso 10.6 milyan oo qofood oo ku kala sugan daafaha caalamka ayaana soo sheegay in dhibaatadan saameyn weyn oo taban ay ku yeelatay. shirkadahan ayuu adeegooda hawada ka baxay qiyaastii abaaro xalay markii ahayd fiidkii xilliga geeska Afrika. bayaan ay soo saartay shirkadda Facebook la yiraahdo ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax cadeyn ah oo muujinaya in xogta dadka isticmaala barahan galaangal lagu yeeshay intii ciladu ay taagnayd. Facebook ayaana bartida Twitter-ka ku soo qortay raaligelintan ku aadan dadka saameynta ay ku yeelatay maqnaanshaha aaladahan dadkii isticmaali jiray. inta muddadaas dheereed ay barahan bulshada hawada ka maqnaayeen ayaana ah wax dhif iyo sidoo kale naadir ah. sidoo kale waxaa jira xogo kale oo sheegaya in khasaare xoog leh uu soo gaaray milkiilaha shirkadda Facebook la yiraahdo. waxaana la sheegay inuu khasaaray 6 bilyan oo dollar oo saacad ka yar gudahood kadib markii ay hawada ka baxday aaladaha amba aaladda Facebook la yiraahdo cilad ku timi iyo sidoo kale baraha kale oo ay shirkaddu leedahay. milkiilahan oo kamid ah dadka ugu taajirsan dunida ayaa waxaa soo wajahday culays dhanka dhaqaalaha maadaama saacada uu khasaaray balaayin dollar oo lacagta Mareykanka ah. haddaba ciladan ku timi aaladan sidee bay saameyn ugu yeelatay dadka Soomaalida ah ee isticmaala aaladahan kala duwan ee isku xiran saacadihii ay aaladahan hawada ka maqnaayeen. waxaan ka wareysay oo ila falanqeynaya Professor Ali Cilmi Ibrahim oo kamid ah professorada Soomaaliyeed si weyn ula socda aaladahan iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelatay markaan eegno maqnaashaha aaladahan Facebook, WhatsApp iyo sidoo kale Instagram intaba. ciladaha fiiniyo shirkadahan wada xiriirka la misana isku dhow isla shaqeeyo oo hawada ka maqnaa ku dhawaad 6 saacadood hawada ka maqnaa ciladahaasna yahay waxa lagu micnay karaa in ay dadkii bulshada isticmaalayay ay garan waayeen meel ay wax ka jiraan oo la kasto jirto marka la fahmi waayay. laakiin shirkadda Facebook oo hadashay ayaa waxay leedahay sababta ku timid waxa weeyaan hanaanka shirkadda oo waxa weeyaan wax cilad ay ka jirtay maana cilada kale ma jirna ay leedahay ma garat. marka waxa weeyaan 6 saacadood ku dhawaad hawada ay ka maqnaayeen shirkadda Facebook iyo kuwa la mataanaha waxa dunidii dhamay saameeyay waxa weeyaan meel kasta ay ku sugan tahay bini'aadamku uu ku sugan yahay dunida dhan ay saameyn ku yeelatay. dhankeedana saameyn ay ku leeyahay oo waxa weeyaan waxa la leeyahay khubarada ka faaloota arrimaha dhaqaalaha waxay leeyihiin halkii saacba waxay qasaaraysay nus milyan. marka waxa weeyaan saameyn aad u weyn ayay leeyahay. ciladaas waxa la sheegaa nin oo shaqaalaha kamid ah inuu horay arintaan uga hadlay wiigi la soo dhaafay warbixin uu bixiyay oo ku leeyahay shirkaddu waxay xoog saartay dhanka dhaqaalaha laakiin dhanka amniga shirkadda ma aysan saarin xoog oo amni ahaan ayadu xoog isma saarin mana ka shaqeynaysa ku sii dad qabileed laakiin waxay xoog saartay dhanka dhaqaalaha. markii laga soo tago hoos u dhac dhaqaale ku yimid shirkaddan Facebook dad badan oo waxa jira ku xiran shirkadahan marka waliba ganacsiyo iyo waliba xiriir ku sameeyay marka iyaga laftigooda saameyn noocay ku yeelatay. wallahi markii la fiiriyo xalay waxa weeyaan ku dhawaadkaas 7 saac ilaa 6 saacadood ay maqnaaday markii la fiiriyo dad badan waxa weeyaan gaar ahaan anaga Soomaali ahaan marka la fiiriyo dhaqaala waxa jira dad ka sameeyo online-ka oo wax ku bixiya iyo bari iyo dad ku xiriiri jiray dhammaan marka waxa weeyaan xalay meel kasta la joogo waxa weeyaan dadku way yaabeen waxay la noqotay nolosha bini'aadamka wax ka dhimayeen yani waxay dadka way la qabsadeen waxay kamid noqotay nolosha asaasiga ay kamid noqday aaladan marka qof kasta meesha uu joogo ayuu wuxuu ku noqday in dhalaan ay aldhay kara ma garad
marka ganacsi ahaan wax badan ay hoos u dhacday maadaama shirkadii weyneed basaamigeeda New York laga soo sheegay inay boqolkiiba 5 waxa weeyaan uga jirto New York taakii la sheegayo Soomaali marka waxa u malaynaysaa dhaqaalihii laga sameey jiray misana ha noqoto dad baraha bulshada online wax ku gada misana ayaga wax ka sameey noqotaya waxa la dhigi karaa saakii meel kasta waa laga dareemay geeyiga Soomaalida isku xirnaanshaha aaladahan Facebook WhatsApp iyo Instagram markaan eegno caqabadaha ka iman kara haddii Facebook cilad ay ku timaado inta kala saameyn uu ku yeelan karo marka soo lama wanaagsaneen inay kala madax banaan yihiin aaladahan waxa aad u wanaagsanaan lahayd aan isleeyahay hadda kadibna way ku tusaale qaadan doonaan inay isku xirnaadaan hal mar daaqada ka baxaan hadda kadib waxaan isleeyahay inay tusaale u noqon doonto inay kala furaan si waxa weeyaan mid hadoo maqnaado midka kale ay bulshadu u sii isticmaalaan maadaama hadda waxa weeyaan dhaqaale yari hoos u dhacay saaki uu soo wajahay tan tusaale ay ugu filan tahay aan dhigi karnaa oo waxa weeyaan ku cibra qaadan doonaan inay kala furaan shirkadaha waxaa jira dad badan oo isticmaalay oo xiriir ku sameynayay walibana xog ahaan isweydaarsan jiray oo dalka amba dibadda jooga marka maxaa diidaya in aalado kale la isticmaalo oo kaliya dadku inay si weyn kaga hadlaan aaladahan maqnaashahooda maxaa keenay kula tahay waxa keenay horta miya waxa waaye bulshadu waa wixii markaasi cusub caalamka jecel baa la yiraahdaa shirkadan markay soo baxday dadku way ku wada yaaceen darteed waxa keenay marka qof kasta inuu galo misana siyaasi misana dhaqaalihiisii uu ku aamino misana bulshadii haday ku wada xiriir ay noqoto waxa keenay dadkii oo dhinaca subata ayaa keenay marka teeda kala dhanka kale shirkadda Facebook bayaan ay soo saartay ku leedahay jirto xogihii dadka waxa weeyaan wax dhib oo soo wajahay ma jirto oo waa sidii xog kasta waa sideeda ay leedahay jira bayaankaas oo waxa weeyaan xogtii dadkii haday noqon lahayd waxyaabo kasta way u xafideen ay leedahay jirto ma garad ugu dambeyn sida dadka ay ula qabsadeen markaad eegto isticmaalka aaladahan ma muuqataa in aan laga maarmi karin oo haddii aalado kale xitaa loo guuro wallahi waxa la nolosha asaasiga waxyaabaha hadda ku soo darsoomay waa aaladaha social media iyo waxa weeyaan hadda iyo korontadii iyo waxaas oo kale dadku way la qabsadeen sadarteed awal waa iska noolaa jiray waxa weeyaan waana la soo joogi jiray laakiin hadda waxa malaysaa guriyihii hadda xalay dadka dhan way qaylinayaan dadkii dhama waxa malaysaa wakaanama inay koon kale iyo meel kale ay galayaan Professor Ali Cilmi Ibrahim ayuu kaasi ahaa dhageystayaal